taliyaha guud ee ciidamada militariga Itoobiya General Burhan Jalu muddo ka yar bil gudahood waxa uu saxaafadda u sheegay in gabi ahaan la tirtiray ciidamada daacadda oo hogaamiyaha baxsadka ee TPLF. taliyaha ayaa hore u sheegay in ciidamada TPLF aanay gabi ahaan gaadhin unug oo tir ahaan u dhiganta marka la eegayo akademiyadda militariga 230 askari. General Burhan Jalu waraysigu uu bixiyay waxa uu ku sheegay in saddexdii maalmood ee la soo dhaafay uu dagaal ka socday agagaarka Maqale. Generalku waxa uu sheegay in ciidamada dawladda federaalku ay tirtireen in ka badan 5,000 oo ciidamada daacadda waa TPLF kuwaas oo halkaas isku urursaday. boqolaal ka mid ahna waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen inta kalena ay farxad yihiin. Generalku waxa uu sheegay in ciidamada qaranku ay ku daba jiraan kuwa ugu yeedhay qaran dumiska. taliyaha guud waxa uu ka jawaabay su'aalo la xiriira awoodda ciidan ee TPLF u hadhay waxaana uu sheegay in xukuumaddu ay la socoto qorshaha TPLF. Generalku waxa uu sheegay in ciidamada daacadda waa hogaamiyaha baxsadka ee TPLF ay diyaariyeen 4 gaas oo ciidan ah kaas oo gaaska ugu awoodda badan hadda la tirtiray halka 3 gaas ee kalena la filayay in ciidamada qaranku ay soo afjaraan laguna raajoogo wali farxadkoodii. haddii aynu raacno tirada uu General Burhan sheegay waa inay jiraan 20,000 oo ciidan hubeysan oo TPLF u dagaalamaya walow tirada saxda ay ka badan tahay amba ay ka yaraan karto. waxa uu dagaalku noqon doonaa mid sii socon kara maadaama labada dhinac ay yihiin kuwa awood badan. ma jirto war ka soo baxay TPLF oo sheegaya in laga dilay 5,000 oo ciidan oo ka tirsan ciidamada TPLF. Generalka ugu awoodda badan dhanka militariga ciidanka dawladda federaalka Itoobiya waa General Burhan Jalu waxa uu sheegay in ciidanka TPLF ay u dhimanayaan gaajo iyo haraad waxaana uu bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan kuwa ugu yeedhay qaran dumiska isla markaasina ciidanka lagu soo wargeliyo kooxuhu halka ay marayaan. Generalkan oo waraysigiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamada jabhaddu ay weerar ku qaadeen ciidamada Amxaarada iyo Canfarta iyagoo halkaasi ka wada in ay isku diraan labada shacab ee walaalaha ah. hogaamiyaha xukuumadda dawladda federaalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa warqad kama dambays ah u diray kooxda TPLF uguna baaqay in ay soo dhiibaan si loo mariyo cadaaladda. xaaladda ayaa aad u adag maadaama Itoobiya ay hadda la gashay faraha xaalad adag lama oga geedigu halka uu biyo dhigan doono.